aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay dood wadaaga lagaga hadlayay shaqo abuurka iyo weliba fursadaha shaqo sida ay ku heli karaan dhalinyarada iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maamulayaasha shirkadaha iyo weliba mas'uuliyiin ka socday maamulka Puntland. Barnaamijkan ayaa inta badan lagaga dooday sida ugu habboon ay dhalinyaradu u heli karaan fursado shaqo. Injineer Cabdicasiis Faarax Xaaji Siciid oo ah wakiilka Hana Academy ee Puntland oo barnaamijkan soo qaban qaabisay ayaa sheegay in doodan ay ka soo baxday in dhalinyarada si siman looga faa'iideeyo shaqooyinkaasi. Waxaana uu warramay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. marka labaad barnaamijkani waxa uu yahay wax la yiraahdo career fair ama job fair waana wax maaragtay bandhig dunida oo dhan ka dhacay magaalooyinka caalamka lagu qabto balse waa markii uu horeysay oo lagu qabanayo gaar ahaan Puntland magaalada Boosaaso. barnaamijka waxa soo agaasimay hay'ad wadani oo la yiraahdo Hana Academy oo basekeedu uu yahay Muqdisho balse ka hawlgasho gobolada Soomaaliya oo dhan. waxaan ugu talagalay 12 magaalo oo kamid ah Soomaaliya in uu ka dhaco sanadkan 12 bilood. bishii koowaad wuxuu ka dhacay Laascaano, bishii labaad hadda wuxuu ahaa Boosaaso, saas ku sii socon doona kan u weyn December wuxuu ka dhacaa Muqdisho Soomaaliya oo dhan. marka kulanka waxa isugu keenay dhalinyarada shaqadoonka ah ee jaamacadaha ka baxay iyo kuwa xirfadaha leh iyo shirkadaha. dabcan maadaama barnaamijku hadda bilow yahay markii uu horeysay aan qabanaynay wax badan oo khibrad ah ama khaladaad naga dhacay ama aan isdhihi karo sanadka dambe waa saxi kartaan baanu ka baranaynay oo pilot project horta tijaabinaynay. laakiin si fiican buu noogu qabsoomay shirkadaha waaweyn oo magaalada Boosaaso degan wax badan baa looga hadlay, aad baa wax looga hadlay oo looga niqaashay panel discussion baa jiray dad khubaro ah iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Cabdiqaadir oo dowladda nagala joogay oo doorka dowladda uu ka hadlay. shirkadihii baa iyaguna ka hadlay waxyaabaha ay arrimaha shaqo abuurka wadanka maadaama shaqo la'aan badan ay jirto ay ka qabteen. marka si fiican buu noogu soo dhamaaday runtii. maxaa xilligan ku soo beegay sooran ka dhacay in magaalada Boosaaso lagu qabto doodan iyo barnaamijka noocan ah? dabcan waxa ku beegay wax kale ma ahayn qorshaha uunba bisha Febraayo Boosaaso magaalada labaad oo Soomaaliya in lagu qabto ay ahayd waqtigu ciriir buu nagu ahaa dabcan ku barnaamijka ku diyaarinay. laakiin waxaan jecelahay sanadka dambe isagoo ballaaran oo carwo weyn ah inaan magaalada ku qabano oo subax bilaabmayo ilaa maghrib uu dhamaanayo oo waxyaabaha sanadka hadda aan dhicin oo kaleeto waqtiga uu saamixin waxa kamid ahayd maadaama ciriir waqtigu nagu ahaa shirkadaha waqtigan u yeeraba wuxuu ahaa waqti aad u dhow. laakiin sanadka dambe waxaan rajeynaynaa inay shaqooyin offer gareeyaan oo dadka shaqadoonka meesha yimaadaan shirkad walba ay sanadka dambe bil ka hor 2 bil ka hor aan sii ogeysiino oo ay timaado iyadoo 2-3 shaqo ama ka badan bixinaysa oo meesha ka qaadanaysa dad jooga shaqo maana u siinaysa inuu dhaco aan rajeynayna insha Allah sanadka dambe. magaalooyinka Puntland waa badan yihiin Gaalkacyo iyo meelo kale. Boosaaso ay sheegtay inay qorsheysateen marka ujeedada Boosaaso maxay ahayd inay ugu qabataan barnaamijka? maadaama ay xarunta ganacsiga tahay shirkadaha ugu badan ay joogaan population far badan joogaan jaamacadihii oo dhan xarumahoodii ay ku yaaleen taasa sabab ahayd inaan maaragtay Boosaaso ka dhigno. laakiin insha Allah magaalooyin kalena waa tagi doonaa lagu qaban doonaa. dadka ka qayb gala waxa u badnaa dhalinyaro jaamacadaha ka qalin jabiyo sanad walba kumanaan kun oo dhalinyaro ka baxa jaamacadaha. barnaamijkana waa barnaamij loo baahnaa waa la oran karaa maadaama dhalinyaradu loo raadinayay sida ay u abuuran karaan shaqo ama cid ay ka raadin karaan oo kale. shirkadihii baa ka qayb galay oo aad u tiro badan marka shirkadaha laftooda ma kala hadasheen in dhalinyarada la shaqo siiyo? exactly dhalinyarada la shaqaaleysiin kala hadalay. waxaan kala hadalay shaqooyinka hoos loo bixiyo oo mesela waxa jira arrimo tusaale ahaan qof baa shaqadii ka baxaya qof qaraabo la ah la keenaya ama qof maamulka isxigaanin shaqooyinka lama xayeysiiyo sometimes graduationka corruptionka arrintan kala hadalay sababtu waxay tahay aan wala hadlayno oo aan awareness ama dadka ugu wacyigelinayno oo cod kor ugu qaadano leenahay war dawladda xataa ugu baaqno shaqo abuur hala sameeyo waxay tahay dhalinyaro fara badan baa inoo joogta. sababta keenaysana waxay tahay inaga dad muslimaan ah dhalmadeena waa badan tahay productionkeenu aad buu u badanaya dadka da'da yar dadka jaamacadaha ka soo baxay gudaha ah dibadda sanadkii waa kumanaal waa badan yihiin haddana shaqada soo bixayso waxa dhici karta hadda Boosaaso hadii la ururiyo sanadkii 100 shaqo inay soo baxaan kumanaal dhalinyarada inay wax bartaan. arrintaas marka maxay keenaysaa waxay keentay wadanka dib u dhac dhaqaale waxay keentay dib u dhac horumar iyo dib u dhac amni
amniga laftiisa khatar bay ku tahay sababtoo haddii qofka wax bartay iyo kaan wax baranba uusan shaqo helin oo uu banaanka ku fariisto khatar amni bay keenaysaa. hadda waxaad arkaysaa magaalada ciyaal moobilada ka furanaya dadka kuwa dhacaya oo baaranaya kuwa meheradaha khatar ku ah meheradaha waxaad arkaysaa abaaba bira bay samaysteen xaafadaha qaarkood. waxaasoo dhan waxaa keenaya shaqo la'aan. dadku hadduu shaqayn lahaa wadanka noloshu waa isbedeli lahayd, amnigu waa isbedeli lahaa. tusaalehaan hadda caa'ilada dadka Soomaaliyeed 10 qof oo guriga ku nool hal qof ay ku nool yihiin. xataa suuqa iyo dhaqaalaha businesska purchasing power waxa la quwadda wax iibsiga dadku damoor shaqo helaan oo lacag helaan awoodda wax iibsiga waa badanaysa. meheradaheena haddaad fiiriso dadka soo galay wax iibsanaya waa yar yihiin. marka nolosha waxa furo u ah qofka bini'aadamka inuu shaqeeyo waliba dhalinyaro hadduu yahay oo uusan shaqaysan waxa imanaysa stress, waxa imanaya buufis, waxa imanaya tahriib, waxa imanaya dhibaato dhan. marka waan kala hadalnay shirkadaha waan ugu baaqnay in dhaqamada noocaas maaragtay aad loo bedelo oo shirkadaha la xayeysiiyo oo si cadaalad oo aqoon oo xirfad ah lagu kala doorto dadka. dawladana inay policy la timaado mid dawlad goboleed iyo mid federaalba arrimahaas aad bay uga gaabiyeen in khatar soo socoto wey. dhalinyarada aad u farabatay shaqaduna ayna jirin risk weyn buu wadankan wajahaya haddii aan wax laga qaban oo siyaasad lala iman. marka laga yimaado inaad shirkadihii iyo maamulkii aad kala hadasheen in dhalinyarada shaqo la siiyo fursado badan oo shaqo baa jira dhalinyarada. marka arrintaas ma kala hadasheen mise idinku laftigiina targetkiina waxa uu ahaa in dhalinyarada loo raadiyo shaqooyin ay inka badan ay ka sameyn karaan oo kale sida maamulka ama hay'adaha ama dawladda? waa su'aal wanaagsan. dabcan siday shaqada u doonayaan iyo shaqada u raadinayaan iyo in shaqo la siiyo kaliya kalamaana hadleen. shirka waxaa kasoo gala dad aqoon-yahana oo aad khubro u ah. waxaa kasoo gala dad NGO-yada localka ah ee ka shaqeeya jaamacadaha gudoomiyaashooda dad kale aqoon-yahan baana discussion baa sameeyay. marka waxyaabihii ka midka ahaan dhalinyarada ku dhiirigelinayna kala hadalno waxaa ka mid ahaa in ay bartaan waxyaabaha xirfadda ah. dadku hadda waxay u badan yahay waxyaabaha artiga aan xirfadda ahayn. jaamacadaha xataa waxaan u sheegnay inay waxyaabahan artiga ay faraha badan ee economy iyo business iyo maxaan ku yiraahday international relation iyo politics iyo aad loo dhigaayo sharciga iyo in laga daayo in la xoojo polytechnicska ama technicianka korontada la baro, carpenterka la baro sida maaragtay alwaaxyada iyo faaradaha, in la baro cunno kariska, in la baro maxaan ku yiraahday timajarista, in la baro dukaameysiga iyo sida khudaarta loo iibiyo, in la baro xataa beeraha sida loo beerto, kalluunka ee badda u yaala saxiimadaha. qofka hadduu baxo saxiimad qaato ama laash subaxdii uu badda aado kalluun soo qabsan karaa biilkiisii iyo noloshiisa uu helayaa. beerihii waa noo yaalaa dhulkii ma aynu beeranayno, xoolihii saasoo kale dhaqashadoodii. marka waxaan u sheegnaa dhalinyarada war dhinaca xirfadda aada. hadda waxaan kaloo aad uga hadalnay hadda especially Boosaaso iyo Puntland gaar ahaan Boosaaso shaqooyin fara badan oo qofku dad kale inooga yimaado gobolada Soomaaliya qabtaan baa jira oo dhalinyarada aysan qabanin. dhalinyarada waxay fadhiyaan darbiyada way shaxatamayaan. haddii uu maanta ka shaqeeyo $300 hotel tag la yiraahdo xiriiriyaha ama alaabta geegeeya noqo oo maamulo ama makhaayad ka shaqeey la yiraahdo xataa inta shaqadii jaamacadeed ah helayso. adduunka dadku maxay sameeyaan? nin PhD sitaba arkaysaa oo taxi wadaya dhaweeyay baa jira xataa uu hadda ku shaqeysan karaa hoteelada ka shaqeyn karaan inuu ma qabano. marka arrintaana wacyi gelin bay u baahan tahay. arrintan wacyi gelin fursado badan magaalo shaqo magaalo ummadda Soomaaliyeed u siman tahay. qof walba yimaado uu ku khayraa noloshiisu kala soo baxaa. haddana dadkeedii baa darbiyada fadhiya. marka waxay u baahan yihiin dhalinyarada in laga taliyo in la wacyi geliyo. arrimahaasna waa ku jireen meesha iyaguna aad iyo aad. wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Faarax Xaaji Saciid oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf.